deegaanka Yibaayil oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaa waxaa laga dhagax dhigay dhismo xarun caafimaad oo deegaanku yeelanayo. Xaruntan oo dhismaheeda hab isku tashiya lagu dhisay waxaa iska kaashanaya bulshada deegaanka oo si isxilqaan ku dhisay xaruntan caafimaad. Waxaana dhulka dhismaha laga dhisay bixiyay qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Mahad Nuur Maxamed oo ku hadlaya afka dhalinyarada deegaanka Yibaayil iyo Sayna Faarax Cumar oo ka tirsan haweenka deegaanka ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigga dhismaha xarunta caafimaad ee deegaanku yeelanayo. Waxayna sheegeen in dhamaystirkiisa ay ka qaadanayaan kaalin weyn. waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo horumarka caafimaadka qayb ka qaadanaysa oo goobta wax ku darsanaysa sidoo kale waxaad u jeedaanin halka uga jeedaan boorka ururkan oo muddo ka soo shaqeynay deegaanka bilicdiisa nadaafadiisa iyo horumarkiisa iyo wax kasta oo juhdiga maanta halkan la dhaxdhigay ka dameeyay waa ururka deegaanka Yibaayil aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyartaas waxaan sidoo kale bogaadinaya cid kasta oo wax ku darsanaysa anagu hadii aanu nahay ururkii deegaanka Yibaayil waxaan ku deeqnay lacag dhan $500 oo galaysa MSH ugu horeeyay ee deegaanku yeesho dhagax dhigayna MSH hadda bilow ah waana la isu taagay waana salaamaya dhammaan waxaana diyaar u ah deegaanka Yibaayil hadduna bilow yahay waana isu taagnay diyaarna waa u nahay agar la'aan Caaqil Cabdirashiid Faarax Cumar Maxamed Axmed Qowdhan iyo Dr. Cabdifataax Yuusuf Gulood oo iyagu kaalinta ugu weyn ku lahaa qabanqaabada iyo dhagax dhigga dhismahan cusub oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in si dhaqso ah dhismo loogu bilaabayo xarunta isla markaana ay soo dhaweynayaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa dhamaystirka dhismahan cusub ee xarunta caafimaadka uu yeelanayo deegaanka Yibaayil. waxayna noqonaysaa xaruntii u horeysay oo caafimaad oo laga dhagax dhigo waxaana dhagax dhigaya community-ga degan magaalada Yibaayil baa isu xil saaray inay sameeyaan xarunta caafimaadka dhagax dhigaan waliba dhul dhan konton lagu dhuftay konton ayaynu hadda taaganahay oo uu bixiyay nin ka mid ah deegaanka dhulkaasna waxaanu uga mahad celinaynaa ninka bixiyay magaciisa waxa la yiraahdaa Yaasiin Orshe waa laba nin baa iskaashay iyo Maxamed Jibriil ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu khayr siiyo waxay nagu booriyeen inay dhul la bixin karo kadibna bulshada oo iska kaashanaysa waxaanu sameynaynaa dhagax dhigi oo hadda dhacaya iyo waliba in wax laga qabto sida ugu dhaqsaha badan waxaan ku rajoweynahay annaga oo dhammaan iska kaashanayna inaanu ka muujino dhisme degdeg ah oo waliba noo bilaaban yahay bilowgiisa sida ugu dhaqsaha badan waxaanu markaa codsanaynaa aniga oo ku hadlaya magaca deegaanka Yibaayil iyo waliba dadka soo qaban qaabiyay hawshan magacooda cidii wax ku darsanaysa hawsha iyada ah ugu furan tahay dhagax dhigga MSH-ka ugu horeeyay ee galabta halkan u taaganahay waxaana ku rajaweynaa ilaahay idinkiis muddo ka yar bil inuu ku gabagabo doono insha Allah bismillaah kariim MSH-ka aanu maanta u taaganay inaan lagu dhisi doono dadka istashi baa lagu dhisay waxaan codsanayaa ilaahay idinkiis in dawladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo cid ay khusaysoba in nagala qayb qaataan insha Allah bismillaah kariim sida meesha looga hirgelin lahaa baltaas insha Allah bidil isbitaal weyn insha Allah bismillaah kariim kan waa bilow waxaana ay ka timi in macni la dhiso dadka deegaanka waxa laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo noqonaysa tii u horeysay ee deegaanku yeesho taas oo iska xil saareen dadka deegaanku aanuna ku boorinayno in jaaliyada dadka dalka jooga ma taqaanay ka soo jeeda deegaanka dadka muslimiinta dawladda Puntland wasaaradda caafimaadka iyo cid kasta oo khusayso in ay gacan ka geysato waxaan bilowga ah ee dadku isu keensaday ama isu keenay waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa in ay bilaabeen dhalinyarta ururka deegaanka Yibaayil sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka jaaliyada ah ee deegaanka Yibaayil oo horay wax badan ugu qabtay deegaanka hadeerna aanu leenahay war wali hawshu waa hawl kama daale wali waa hogadii